shirkadaha isgaarsiinta Somaliland ee Somtel iyo Telesom ayaa kala saxday heshiiska isku xidhka shirkadaha isgaarsiinta. heshiiskaas oo sahlaya in macmiilka hal shirkad uu wici karo lambarka shirkad kale. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Siciid Mira Giire, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Dr. Cabdulle Sheekh Cabdullaahi Suufi, gudoomiyaha bangiga dhexe Cali Cabdi Daahir, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland ayaa goobjoog ka ahaa heshiiskan oo ka dhacay xarunta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ee magaalada Hargeysa. heshiiska ayaa waxa kala saxday mas'uuliyiin matalayay shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom iyo Somtel. markii heshiiskaasi qalinka lagu duugay, waxa halkaasi ka hadlay oo faahfaahiyay nuxurka heshiiskaasi wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdulle Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil. maanta bishu tahay 19 bishii labaad 2022 waxa uu farxad wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda inuu soo dhamaaday hawl muddo dheer soo qaadatay oo ah in la hirgeliyo isku xidhka shirkadaha ama waxa la yiraahdo interconnectionka oo macaamiisha u suurtagelinaysa in ay wici karaan qof kasta oo sita telefoonka gacanta ee dalka ka diiwaan gashan. muddo soo qaadatay wasaarad ahaan waxaan ku bilownay inaanu horta u sameeyno xeer nidaamiye anagoo ka talagelina shirkadaha isgaarsiinta Telesom iyo Somtel. sidoo kalena heshiis baan diyaarinay. halka markaa waxaan uga mahadnaqayaa labada shirkadood runtii muujiyay dadaal iyo tanimo xeerka isgaarsiintu uu ku waajibinayaa shirkadaha in interconnection hirgalo, laakiin caqabado fara badan hore u jiray oo suuqa isgaarsiinta Somaliland ka warqabteen muddo soo socday awgeed bay wax badan ka tanaasuleen. marka aad baad ugu mahadsantihiin. kale hawl badan baynu qabanay. laba goor hore aan u malayn mar 2006 bay ahayd la isku xidho uu istaagay. 2011 mar buu jiray wada hadal aan dhamaystirmin, laakiin anagoo taa ka dawlayna waxaan ugu talagalnay in shuruucdii iyo xeerarkii waxba baan dhamaystirno. maanta alxamdulillah wada hadallo dheer labada shirkadood iyo wasaaraddu meel bay soo gaadheen. maanta waxaan u bilownay waa Telesom iyo Somtel isku xidhkan. shirkadaha kale isgaarsiintuna waxay mari doonaan wadadaasay mari doonaan haddii alla yidhaa. marka aad baad mahadsantihiin. anagoo wasaarad ahaan waa noo farxad, waana xaq muwaadiniintu ay leeyihiin oo meel walba maalin walba nala weydiin jiray. cidda ugu badnayd ee na weydiin jirtayna baarlamankay ahaayeen. waa sababtaan maanta aan ugu soo marti qaadnay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada. marka alxamdulillah maanta way noo dhammaystirantay. heshiiskani wuxuu ku hirgeli doonaa muddo 40 maalmooda. wuxuu u baahan yahay la diyaariyo dhinacii farsamada, dhinacii xisaabaadka iyo waxyaabo kale oo laga maarmaan ah. ugu badnaan 40 maalmood gudahood buu ku hirgeli doonaa. gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Somaliland, gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay heshiiskaasi. ka urur ahaan waxaana la gudboon inaanu wixii allaala wixii shirkadaha u soo kordha amba dowladaba aanu ku hambalyeeno. marka horta ilaahay waxaan uga rajeynayaa heshiiska ay galeen shirkadaha labada shirkadood inagu waaweyn in ilaahay u barakeeyo. awalan waxaan u mahadnaqayaa runtii oo hambalyadeeda leh madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo hormood u ahaa runtii in halkan la soo gaadho. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo guud ahaan wasaaradda isgaarsiinta oo iyaguna ahaa xariga isku xidha shirkadaha oo runtii isku soo dhaweyn iyo odaytinimo badan muujiyay. waxa kaloo iyaguna hambalyada leh oo runtii aan u mahadnaqayaa shirkadaheena isgaarsiinta oo runtii iyaga laftigoodu danta guud ee qaran iyo ta bulshaba runtii ka horumariyay tooda gaarka. waxa wasaaradda maanta runtii u hirgalay arrin aad u weyn oo muhiim ah oo wasiirka ku hambalyeynayno runtii iyo shaqaalaha wasaaraddaba. maanta halkan waxaa runtii ka dhacay wax aad iyo aad u qiimo badan. labadii shirkadood oo ku heshiiyey siday u wada shaqayn lahaayeen, ummaduna uga faa'iideysan lahayd maanta teknoolojiga cusub ay inoo keeneen oo Afrika ku dhaafnay. waxaan halkan maanta runtii aan leeyahay hambaliyo wasaar. ugu dambeyn, gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Siciid Mira Giire ayaa waxa uu ku hambaliyay shirkadaha isgaarsiinta ee Somtel iyo Telesom heshiiskan ay kala saxdeen maanta ee sahlaya inay isku xidhmaan shirkadahaasi. sharaf iyo farxad bay tahay maanta inaan goobjoog ka noqono anigoo ku hadlaya magaca golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland. xeerkii
in halka lagu heshiiyey wadahadalka shirkadaha somalilan farxad runtii bay noo tahay wasaaraddana farxad weyn bay u tahay qarankana farxad bay u tahay arrinta halkan ka dhacday maanta waa arrin qaran aad baan ugu faraxsanahay mas-uuliyad weyn baa runtii naga saarayd mar kastoo wasiirka golaha yimaado ama guddida ha u yeedho ama goloweynuhu ha u yeedhe assignmentka ugu weyn weydiin jiray waxay ahayd shaqadaad u igmanayd maxaa shirkaddu wala hadli waayeen oo bulshadii kala qoqobay iyagoo telefoon haystoo lacag bixinaya runtii mas-uuliyad weyn bay ahayd farxad weyn bay maanta qaranka u tahay aad baan ugu hambalyaynaya wasiirka ha noqoto tan maanta dhacday iyo tii ka horreysay ee kebilka oo iyadana muhiimad weyn qaranka u leh labadaba runtii aad baan uga hambalyaynaya roolka uu ka qaatay isu jiidka leh u socodka leh soo dhoweynta leh runtii aad baan uga hambalyaynaya wasiirka wasaaradda iyo guud ahaan xukuumaddaba arrinta labaadaan raba inaan tilmaamo waxa weeyaan yar u mahadnaqaya shirkadahan somtel iyo telesom oo shirkadaha waaweyn qaranku leeyahay runtii hadday noqoto dhinaca shaqo abuurka hadday noqoto dhinaca qayb qaadashada bulshada iyo horumarkeeda hadday noqoto dhinaca isku xidhka hadday noqoto dhinaca waxbarashada runtii waa shirkado qaranku leeyahay lama odhan karo qof baa leh iyo koox baa leh midda anigu ma qaba inay tahay shirkado qaranku leeyahay in la ilaaliyo iyo in la iska dhowr taagana runtii diyaar baa loo yahay anagu ka galo wakiil lahaa waxaanu ballan qaadaynaa wax kasta oo aan ka hor imanayn dastuurka iyo shareecada islaamka oo dan u ah maslaxadda qaranka inaanu kala shaqayno shirkadahana barbar taaganahay waanu kala shaqayn doonaa iyo wasaaradda insha allah abdullahi kariim aad baan idku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad luqmaan maxamed faarax mm t v hargeysa